وسفركي ugu horeeyay ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku yimaado magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland dabcan sidaad arkaysaanna waxa halkan ku soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas inta kadib madaxweynaha waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland waxana markii dambe loo soo galbiyay barxadda weyn ee caanka ah ee magaalada Garowe halkaas oo ay ku sugayeen kumanaan kamid ah shacabka reer Puntland halkan waa barxadda Garowe oo si aad loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxana uu gacan qaadayaa dadweynaha halkan ku soo dhaweeyay sidaad arkaysaan waa qayb kamid ah soo dhaweynta ballaaran ee dawladda Puntland ay ugu talagashay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii dambe shir jaraa'id waxa ay ku qabteen xarunta madaxtooyada Puntland iyagoo halkaasi kula hadlay suxufiyiinta waxaan maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho noogu yimid madaxweyne ku soo dhawow Puntland oo adigana ku jecel Soomaalnimada jecel ku soo dhawow dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dawladnimada ka jirta aad aragto la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga dawladnimada diyaar u ah inay dhageystaan ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya geedi socodka nabadda Soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo dawladnimo hagaagsan nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo galeelideeda diyaar oo inay ka qayb qaataan madaxweynuhu wuu nala joogayaa muddo dhowr bari ah arki doona dalka iyo nabadda ka jirta iyo nidaamka dawladnimo ka jirana marka madaxweyne ku soo dhawow Puntland waxaan maanta aan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan socdaal ku joogo magaalada Garowe ee caasimadda dawlad goboleedka Puntland iyo mudane madaxweyne adiga iyo dawladdaadaba sida sharafta leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga xaqiiqatan laba jeer hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan arko intaas oo qof oo reer Puntland reer Garowe ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidadka taagnaadaan oo calama qoyan ay nagu soo dhaweeyaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa aad iyo aadna ugu faraxsanahay halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ee koow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta waxaan jeclahay inaan tago dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo xuqaasha salaadiinta dadka maxaan ku raahdaa aqoon-yahanada civil society-ga jaamacadaha ardada dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha Allahna wax badan yaan isweydaarsan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii waa soo daahay reer Garowe reer Puntland raalli ahaadaan waa soo daahnay waxaan u soo daahnay wax kale ma ahayn duruuf shaqo awgeed insha Allahna waa ku soo noqonaynaa aniga iyo dawladda federaalka insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin halkan waa madaxtooyada dawlad goboleedka Puntland uu madaxweynaha shirkan jaraa'id uu ku qabtay waxana uu sheegay madaxweynaha in safarkiisaan halkan Puntland ay ugu horeyso sidii loo xoojin lahaa nabadda iyo waliba horumarka guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland Ibrahim Cumar Baafe wararka Universal magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland